kulanti wacan oo wanaagsan akhyarta hawada nagala xidhiidhaysay waxaad ku soo dhowaataan warkii hoyga Soomaalida Holan oo aad si toos ah ugala socotaan FM-ta Amsterdam 99.4 MHz iyo barta internetka ee ciwaankeedu yahay dalmar.org. shirkadda weyn ee caalamiga ah ee samaysa softwareka kombiyuutarada ay ku shaqeeyaan Microsoft ayaa daboolka ka qaaday in dhowaanta mar kale ay soo bandhigi doonto program antivirus ah oo ay iyadu leedahay. Microsoft ayaa sheegtay in dhowaanta ay dadweynuhu soo download garaysan karaan antiviruska ay samaysay oo bilaash ah, waxaanay shuruud uga dhigtay in qofku marka hore haysto Windows sharciga waafaqsan si markaa qofkii rabaa u soo download garaysan karo. Programka cusub ama antiviruskan ayaa lagu magacaabaa Microsoft Security Essentials, kaas oo haatan 19 waddan oo Netherland ay ku jirto laga heli karo internetkooda. Antiviruska cusub ee Microsoft ayaa noqon doona mid ka hortaga dhibaatooyinka iyo fayrasyada kala duwan ee internetka haatan jahwareeriyey. haatan ka hor ayay Microsoft isku dayday in ay lacag ka dhigto antiviruskeeda oo socon waayey kadib markii ay suuqa ka xidheen shirkadaha kale ee sameeya antivirusyada kala duwan oo ay ka mid yihiin Symantec, McAfee iyo weliba qaar kale oo bilaa lacag ah iyagu. madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa kulankii ugu horreeyey ee uu la yeeshay xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO Anders Fogh Rasmussen ku sheegay in dalalka xubinta ka ah gaashaanbuurta NATO ay sii joogi doonaan dalkaasi Afghanistan ilaa inta ay doonaan si ay hawshooda u dhammaystiraan. waxaanay ka wada hadleen labada mas'uul aayaha dambe iyo howlaha mustaqbalka ee gaashaanbuurta NATO. madaxweyne Obama ayaa sheegay in loo baahan yahay in dib u habeyn lagu sameeyo NATO si ay guulo waaweyn u soo hooyaan. dhan kale madaxweynaha Mareykanka ayaa weli wada tashiyo uu la yeelanayo madaxda militari ee dalkiisa si uu u ogaado baahida ciidamada Mareykanka ee jooga dalka Afghanistan. madaxweyne Obama ayaa haatan ka hor sheegay in uu kordhin doono ciidamada Mareykanka ee jooga dalkaasi Afghanistan. wasiirka arrimaha bulshada dalka Netherland Peter Donner ayaa sheegay in aanay wakhtigan xaadirka ah habboonayn in dowladaha hoose aad isugu mashquuliyaan sidii ay shaqo ugu samayn lahaayeen dadka inta badan guryaha fadhiya ee bilaa shaqada ah. wasiirka bulshada Netherland oo ka qayb galay shirweyne lagaga hadlay iskaashiga iyo horumarinta dhaqaalaha oo lagu qabtay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa sheegay in khimeentiyada ama dowladaha hoose ee dalka Netherland ay lacaga badan kaga baxaan sidii ay dad badan oo bilaa shaqo ah ama ay dhaqaata meherad ugu samayn lahaayeen mashruucyadaas oo lagu magacaabo Melkert Banan. waxaanu wasiirku sheegay in ay adag tahay sidii dadkaasi shaqooyin joogto ah loogu heli lahaa ama ay uga bixi lahaayeen gacanta socialka iyo khimeentiga. dadkan weli dowladda gacanta ugu jira oo intooda badani ay qaataan lacaga yar oo dowladdu siiso ayaa ah kuwa aan weli ka maarmi karin shaqooyinka yaryar ee khimeentiyadu u dirto, waxaana adag in ay iskood shaqooyin u helaan. wasiirka arrimaha bulshada Holland Peter Donner ayaa intaa ku daray in shaqooyinka socialka iyo khimeentigu bixiyaan ay yihiin kuwo wakhti gaaban ah oo loogu talagalay in dadka bilaa shaqada ahi ku tababartaan si ay mustaqbalka ugu tallaabsadaan shaqooyin buuxa. waxaanu sheegay wasiirku in aanu imika ku qasbaynin khimeentiyada in ay joojiyaan shaqooyinka ay siiyaan dadka caydha ama lacagaha socialka loo yaqaano qaata, hase yeeshee ay ka qarash yar tahay in dadkaasi ay shaqo la'aan guryaha fadhiyaan si loo xadido lacagaha fara badan ee dowladda loogana soo kabmo dhaqaale darrida ka jirta dalka. urur ka mid ah ururada u dooda xuquuqda aadamaha oo ka jira dalka Guinea Conakry oo ku yaala Afrikada Galbeed ayaa sheegay in ay ku qori waayeen 117 qof mudaharaadyadii ka dhacay maalintii Isniintii oo ay ciidamada amniga dalkaasi ku fureen xabado dad rayid ah oo iyagu markaasi isugu soo baxay mudaharaad ballaadhan oo ay mucaaradku soo abaabuleen.
dad gaadhaya 50,000 oo qof ayaa isugu soo baxay magaalada madaxda dalkaasi ee Conakry si ay uga qayb qaataan mudaharaad cabasho ah oo lagaga soo horjeedo hogaamiyaha military ee waddankaasi Guinea Conakry Captain Camara oo xukunka xoog ku qabsaday kadib markii uu geeriyooday madaxweyne Lassana Conte. qaar ka mid ah Soomaalida ku jira jeelasha dalka Liibiya ayaa lagu soo waramayaa in ay cabeen waxyaabo sun ah kadib markii ay u adkeysan waayeen dhibaatooyinka ay ku hayaan ciidamada amniga xabsiyada dalkaasi Liibiya. dadkaasi Soomaalida ah oo ka cawday in aanay jirin cid ka hadasha xaaladooda iyo dhibaatada ay ku jiraan ayaa bilaabay dhowaanta cunno joojin ay ku muujinayaan xanuunka iyo cadaabta ku haysata jeelasha dalka Liibiya iyo ciidamada nabad sugidda oo lagu tilmaamo in ay yihiin kuwa adduunka ugu naxariis daran. Soomaalida ku jira xabsiyada dalka Liibiya ayaa ka cawda dhibaatooyinka ay ka mid yihiin jirdil isdaba joog ah oo mararka qaarkood ay dadi ku dhintaan oo ay ku hayaan ciidamada nabad sugidda ee dalka Liibiya. ciidamada Liibiya ayaa Soomaalida inta badan ka soo qabta xuduudaha dhulka iyo kuwa badda dalkaasi Liibiya, halkaasi oo dabadeed lagu hayo jeelasha dalkaasi intii la doono. wasiirka arrimaha dibadda dalka Yemen Abubakar al-Qirbi oo u waramay wakaaladda wararka u faafisa dalka Yemen ee Saba ayaa sheegay in ciidamada nabad ilaalinta midowga Afrika ee dalka Soomaaliya ka howlgala ay hayaan waa sida uu hadalka u dhigay hawl wanaagsan oo dhinaca ammaanka ah. Abubakar al-Qirbi wasiirka arrimaha dibadda dalka Yemen ayaa tilmaamay in ciidamada AMISOM ay dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ka taageeraan dhinaca nabadda, waxaanu intaa ku daray in ujeedooyinka ay dalka Soomaaliya u joogaan ciidamadaasi ay qayb ka tahay sugidda ammaanka xarumaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga ee Soomaaliya jooga. wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalka Yemen ayaa ka dalbay caalamka in la taageero isagoo ku tilmaamay hawsha ciidamada AMISOM hawl adag in ay shacabka Soomaaliya u hayaan. waxaanu intaas raaciyay in xaaladda ammaan darro ee Soomaaliya ka jirta ay sababtay in dalka Yemen ay ku soo jabaan kumanaan qaxooti ah oo si ku meel gaadh ah weli ugu jira xeryaha qaxootiga ee dalka Yemen. wasiirka ayaa sheegay in xukuumadda Sanca ay taageersan tahay dawladda ku meel gaarka ee uu hogaamiyo madaxweyne Sheekh Shariif, waxaanu ku tilmaamay in loo baahan yahay in caalamku dawladda Soomaaliya ay taageeraan. hadalkan ka soo yeedhay wasaaradda arrimaha dibadda dalka Yemen ayaa ku soo beegmay xilli dawladda Yemen ay dhowaanta shaacisay in ay gacanta ku dhigtay 7 dagaalyahan oo Soomaali ah oo ka garab dagaalamayay kooxda mucaaradka ee Al-Houthi oo ka dagaalanta iyadu gobollada waqooyi ee dalkaasi Yemen. halkaad warkaa kala socotaana waa Amsterdam, hoygii Soomaalida holan oo aad ka dhagaysan kartaan internetka dalmar.org. warkaygii caawana intaas ayuu inoogu dhan yahay.